noolay. What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fawska Ilaahi wuxuu quraanka ku leeyahay kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي قرآن كوحولي نف ولبوي جيريونيسا نلشو تنلشوغا وحسيس عنيا معها مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة ويتقي سبالي وحكستو أكتاد يال نوع كستبو وياهي واتكتقي سبالي واتجيريونيسا بالغوت المام وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وحال يدين دم يستريا وحا شقيستين با إلهي لي مالنت قيامة أدونك هدي وحلقاسي وددنسين ولو ددنسي وحوين ماها لكن وحي آت شقيستين عمرقاقاتكم بحسي إنسانكم رأس ماله وسنواتكم نوليهي وحي آت شقيستين وحا لقو أوفين يلغو دم يستريا آخر بار رب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيدا أوجد وحلو حريبا ميزانكم إنه لبدأ إريهي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نكي النار تلقى نفطه النار تلوي داريه الجنة اللقالية كاسبة قول استبع إلهي سبحانه وتعالى قوش النبطة قفك قاري وقفك كان markaas aayadda ilaahay hadana wuxuu ku gabagabeeyay wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur nolosha adduunna ma aha mid kadsani wuxuu birbirsada mooyaan yani nolosha adduunyo waa mata' laakiin ay mata'u tayil maghrur kull kadiyay ku aan aqliga si fiican u isticmaalin ba tan nafmooda walidalika ayuha al-ikhwa markaynu wax qiimeynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno noloshoo dhan adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada maraaxil bay noloshaadu maraysaa maraad caloosha hooyadaa ku jirtay maraad yareedoo soo koraysay maraad geeriyootay maraad xabaal ku jirto mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo iyo dayn halkay ku gabagaboobaysoo ah laba meeloodoo biniaadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso جنة داديسة سنار باداديسة وإن نفهنا مركا نولشة إنو تشوغنو محي معنى السميسة قرآن كوحي نوشيغي أن نولشة إنو يتهي امتحان وموضوع ابتلاء وحكستو نولشة إنت تشوغتك وقصوا بحانا والسؤال جوابتي إذا للسوغي يوحد كورتو whatsoever dad caafimaad qabto waa su'aal dad xanuunsanayso waa su'aal dad xoolo haysato waa su'aal haddaad faqri ku jirto waa su'aal whatsoever wax kasta oo nolosha kula kulma waa page nolosha ka mid ah laakiin imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto mid walibana jawaab bay leedahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حالينات المامي جيريدة هي نولشة هي وحنودا من معناها قول اللو قدن ليينو يتهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن ليدن تجربة يو ليدن اتحامه إلهي مركا وحين ليه سبحانه وتعالى وردونك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxu mar dhulka uga dhigay baa Ilaahay leeyahay oo maxaa looga dhigay linabluwahum ayyuhum ahsanu amala ina dadka itixaamo kooda amal fiican baa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala marka Ilaahay wuxuu leeyahay nolosha gabigeedba waxaan idin keenay leeyahay itixaamo the purpose of life waa inta waxa lagu itixaamayana waa maxay ee ugu horeeya waa takaliif alxayaa وعبادة وقهر الرئيسة وهي إنسانكم بفطرته بيد هذا أي عابديه
لكن waxa lagu itixaamaya liman tuwajjih alcibaadata ilayh cibaadada yaad uga imanaysaa ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badh afarayta man ittakhada ilaahahu hawaah maaragta ka warran baa rabbi leeyahy kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto naftiisa waxa ay doontay kastuu ka dhigtay ayuha alikhwa markaa waxaynu leenahay noloshanaynu joogna iyadu guul kale ma leh noloshanaynu joogna waa imtixaan imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal laakiin waa a bit of it ma aha jawaabtii rasmigahay wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay positive iyo negativekuu doonaba ha ahaado laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay yowma alqiyaama walidalik miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay ma aha hebel baa carruur badan dhalay ma aha hebel baa madaxweyniye magac iyo maamuus helay waxaasoo dhan maaha xabaasha markaad tagto cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi maxaa xoolo jiray maxaad dad iyo carruur ka timi maxaad magac iyo maamuus ka timi waxaa lagu weydiinayaa as'ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiya alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya huwiyada identity duni cusub baa timi tii hore waad ka timi identity kaarhkaagaa lagaa rabaa inaad dhiibato identitygaagu waa saddexdan su'aalood waxaad kaga jawaabto man rabbuk wamaa nabiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah kaas baa ku ah idgaaga rasmiga ah jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakaaha waxa guulaystay liibaanay man zakaaha naftan qofka طahira qofka nadiifiya xumaha ka nadiifiya waman yuطic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala laa yastawi asxaabu الnaari وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إذن قرآنكو عدو فائزين كو شيغا يوردن وأعماش آخرة دتك الليل قرآنكو وحاو فوز عظيم الشيغا يوردن وآخرة دتك قوليستي ميزانك فوز كريلة وحوين يلي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة لأن noloshana si dhab u fahmo dadkan aynu nimi waa dad tani u muuqda dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u samaynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya yana sidoo kale inaynu u fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax walba aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhira ka jira muxuu ilaahay agtiisa gooya muxuu janno ka tara muxuu naar ka gooya والنار بو يقف غيني يمسي وانكو دعيا هداد وحيدتين هذا آخرة بدباده أنت الفايز هديس آخرة بدبادي ويدو دوني دا وح كستوات نقضه خسارة كسوانت إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إنه حقا ينوافجيه كوان حوقه دو خسارنا وينغيله آخرية دون كده بكوي ربي وهقاجيه إن ربي سبحانه وتعالى ينغيله صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم